arrintan gaalkacyo ka dhacday nooga waran. bismillah akhi fadil allah ku barakeeyo. arrintaas waa arrin ummadda Soomaaliyeed ay ka argagaxeen ama dadka muslimiinta dhammaan meel ay joogaanba. arrintaasi waa arrin kedis ah oo la arag oo la maqal oo Soomaaliya ka dhicin. usbuucan aan ku jiro ayay arrintaasi dhacday. ninkaasi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu cirdigiisii uu meel oogaga dhacay xilli uu duubay iyo taariikh oo rasmi ah lama hayo ilaase inay soo bambaxdo oo iclaamka soo gasho oo internetyadii websayada ay soo gasho usbuucan ay soo baxay. arrintaasi waana arrin lala yaabay oo ummadii muslimiinta ahaa meel ay joogaanba gaar ahaan Soomaaliya ay argagaxeen oo dhafoorada qabsadeen. hadda ka hor aan la arag oo la maqal. falka ninkan uu ku kacay dadka aan la socon bal u sharax. akhi ninkaasi falka uu ku kacay waa fal gaalnimo ah oon qarsoonayn, aanan la shigshigaynin, aanan laga leexan haynin. falkaasi waa fal gaalnimo ah. ummadda muslimiinta oo dhanna waa og yihiin. waxa ay ka qarsoon tahay ma aha. arrintaasi waa fal gaalnimo cad ah adeer oo ninkaasi uu ku dhacay. waan gartay marka sheekhan alwali isagu wuxuu ku andacoonayaa inuusan ula jeedin nabiga sala allahu calayhi wasalam balse uu ula jeedin nin kale. bal arrintaas ka waran. waxaasi waxa weeye adeer waa mataqaanaa indhabiya marin baa la yidhaahaa ama mataqaanaa ismoogamoogeysiin. waxaasi wax moogamoogeysiin ninkaa ku dhaafaysa ma aha. ninkaasi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu cirdigiisii uu meel oogaga dhacay oo uu sawir nin kale oo suufi aho oo nool oo la yaqaano uu leeyahay intuu soo saaray kursi uu ku tilmaamahayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo uu banaanka isa soo dhigay oo caddaysan hayo oo asaguna mataqaanaa ummad muslimiin ahoo fara badan meesha uu ku aafeeyey oo uu ku galaafay. arrintaasi adeer arrin labalabayn haysa ma aha. waa arrin cad oo mataqaanaa ninkaasi calool adeyga uu sameeyey iyo halka uu ka baxay inuu maanta fiidyo uu iska duubo oo uu soo bandhigo isagoo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku matalahayo sawir uu nin Soomaali ah oo la yaqaano oo suufihi uu leeyahay uu maanta ku matalo. arrintaas adeer waa gaalnimo cad oon qarsoonayn wey. waan gartay marka sheekhana arrinku ninkaasi u gafay nabiga sallallahu alayhi wasallam xukunkiisa muxuu yahay maxaase kala gudboon mujaahidiinta. adeer xukunkaasi laba xukun meesha ma yaalaan. kitaabka ilaahay ninkaa wuu xukumay wuxuuna ku xukumay gaalnimo iyo dil buu ku xukumay. ninkaa iyo madaxiisa insha allahu tacaala iskuma ooli doonaan. mujaahidiinta iyo muslimiintana waxa uga yaabay waxa weeye ninkaa iyo madaxiisa inay kala gooyaan oo kala dheereeyaan oo dadka muslimiinta qof kasta oo ninkaas fursad u helayo inuusan ka leexanin oo uu madaxiisa iyo qoortiisa uu kala gooyo. ninka xukunkiisa adeer waa dil weye asagii madaxiisa in la kala gooyona way. waan gartay marka sheekhana adigoo mahadsan waxaan la soconnaa wadamo badan oo caalamka kamid ah sidaanu ka nabiga sallallahu loo aflagaadeeyey balse hadda maxaa u sabab ah in falka noocaas oo kale markii ugu horeysay lagula diirido in Soomaaliya lagu dhex sameeyo. adeer horta waa markii koobaad oo Soomaaliya ka dhacdo taariikhda inta la hayo. arrintaasi waa markii koobaad oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu aflagaadeeyo ama mataqaanaa sawirro lagaga sameeyo been abuur aha. waa markii koobaad oo Soomaaliya ka dhacdo. waxaan ognahay inay Faransiiska ka dhacday muddo aan dheerayn. wixii ka dambeeyeyna waa la wada ogyahay dadka muslimiinta ee loogu aarguday. Denmark wixii ka dhacayna waa la ogyahay iyaduna ay samaysay iyo wixii loogu aarguday iyo wixii dadka muslimiinta ay ka sameeyeen intaba. falkani waa fal Soomaaliya ku cusub weeye oo aan hadda ka hor aan dhicin. xaajo ugub ay Soomaaliya tiraahdaa maamada Soomaaliya xaajo ugub ah waa xaajo ugub ay ku tahay Soomaaliya. arrintani waa arrin ku cusub hadda ka hor aan dhicin. waana arrin maanta ummadii muslimiinta ay dhammaan ay yaabeen waaye. yaabista ay yaabeenna waxa weeye waa wax ku cusub oo wadanka Soomaaliya la yidhaha hadda ka hor aan ka dhicin weeye. gaalada meelaheeda waa ka dhici jiray waana laga jawaabi jiray dadka muslimiinta. jawaabo cadcad bay ka bixiyeen oon qarsoonayn. tanna insha allahu tacaala jawaab bay ka bixinayaan dadka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta. sheekhana adigoo mahadsan ugu dambeyntii dadka muslimiinta ee ku dhegeysanayo maxaad ugu baaqaysaa. dadka muslimiinta ah ee dhegeysanhaya iclaamka la socda waxaan ugu baaqayaa laba arrimood. reer gaalkacyo waxaan leeyahay ninkaas waad ku kalsoonteen oo wiidan khayaameeyey oo wiidan shirqoolay. dadka intii aan aqoonta u lahayn ee caamada ahayd ee shacabka ahayd waxaan leeyahay ilaahay oga toobadkeena oo arrintaa ka carara oo ka fogaada oo ka dheeraada oo ilaahay subxaana watacaala u soo laabta. ninkaasi wuu gaalnimo ku dhacay muddo dheerra wuu waday.